ma ogtahay dalkan kaliya inuu ka kooban yahay labadan tiir ee qaybta dhexe oo kaliya waana dal dhameystiran oo leh calan u gaar ah lacag u gaar ah baasboor iyo xitaa sharciyo adag wuxuuna leeyahay dalkan xitaa xabsiyo lagu xiro dadka dambiyada ka gala dalkan balse wali waxa ictiraaf ah kama uusan helin caalamka dalkan Zealand dalka badda waa dalka ugu yar caalamka oo dhan wuxuuna ku yaalaa inuu dhow yahay dalkan biyaha badda boqortooyada Ingiriiska dalkan ayaana la aasaasay sanadkii 1967 waxaana dalkan aasaasay nin la yiraahdo Robert Bates ninkan ayaa markii hore ku noolaa boqortooyada Ingiriiska balse waxa uu rabay inuu asaasto radio station u gaar ah isaga dawladda Ingiriiskuna ay ka diiday maadaama markaas uu ka jirtay dalka hal radio taas oo ahayd BBC-da ugu dambeyn ninkan waxa uu raadiyay meel u dhow Ingiriiska xad ahaan ka baxsan taas oo ka asaasan karo radio isaga u gaar ah si shuruucda Ingiriiska aysan u qaban markaas halkan ayuuna ka asaastay radio isaga u gaar ah markii dambana waxa ku soo dhacday fikrad ah inuu ku dhawaaqo oo asaaso dal dhameystiran waxaanu ku dhawaaqay dalkiisa cusub isagoo noqday madaxweynaha dalkan dhismaha yar ee towerka ah ayaa markii hore waxa dhisay militariga Ingiriiska xilligii uu socday dagaalka labaad adduunka Ingiriiska ayaana dalka yar soo faragashan maadaama uu ku yaalo biyaha caalamiga ah oo jira Ingiriiska 12 kiiloomitir oo kaliya in ku dhow 70 sano maanta uu dalka yar wali asaasan yahay waxa ka taliyay wiilashu dhalay Roy hase ahaatee dalka yar waxa ictiraaf ah kama uusan helin caalamka waxaanu ku jira dalalka yaryar ee isku yiraahdo micronatirka kuwaas oo wali ictiraaf ka helin caalamka oo dhan dalkan kaliya waxa ku nool caadi ahaan 5 qof ilaa 10 qof intuu dhaxaysa balse waxa la sheegay in baasaboorkiisa ay haysto in ka badan 300 qof